fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan soo dhigno cusub annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. maalin maalmaha ka mid ah xilligii Nabi Suleymaan shimbir ayaa zaid u oomay waxaana doonay meel uu biyo ka cabo. shimbirkii waa uu soo duulay waxaana arkay barkad ay ag joogaan caruur iyo haween. waxa uu isdhahay haddii barkada u degto caruurtii haweenku ay ku dili doonaan. meeshiisa ayuu ku hakaday. markii caruurtii haweenkii ay ka dhamaadeen waxa ay yimid nin gar weyn. shimbirkii waxa uu isdhahay ninkan wuxuu u muuqdaa nin khiyaar ah. dadka asiga la midkaana shimbiraha iyo waxyaabaha la midka ma dilaan waxaana ka muuqato calaamadihii dadka oo wanaagsanaa. shimbirkii waa uu ku soo degay. shimbirkii markii uu ku soo degay barkadii isla markii waxa uu la kulmay dhagax isha uga dhacay. shimbirkii waa uu ka haaday asigoo ka cararay nafsadiisa la baxsanaya. waxa uu dacwooday Nabiyullaahi Suleymaan oo xilliga talinayay. Nabiyullaahi Suleymaan waxa uu amray ninkii in la keeno oo shimbirka dhagax ku dhiftay. ninkii ayaan la soo xaadiriyay. waa la soo xaadiriyay ninkii garka weynaa. Nabiyullaahi Suleymaan su'aal ayuu weydiiyay. waxa uu ku yiri shimbirka maxaad dhagax ugu dhifatay? dan miyaa jirto oo aad ka lahayd? ninkii waxa uu ku jawaabay maya. Nabiyullaahi Suleymaan waxa uu amray ninkan ish laga rido sidii uu shimbirkii ish ugu riday oo kale. shimbirkii ayaa qayliyay. waxa uu yiri nabigii Ilaahayow ninkan ish laga ridin balse girka laga xiro. maxaa yeelay girka ayaa ah mid ka qiyaanay oo aan ku fishay dartii amaan iyo nabadgelyo. mararka qaar qof oo ku libisan kara dharka amiiska imaamadda isagoo laga yaabo inuu gaal yahay balse dhaqanka wanaagsan ayaa lagu kala duwan yahay. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.